madaxda dhaqanka ee gobolka Sanaag ayaa maanta kulan ballaaran ay ku qabteen magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ergaba shaaca kaga qaaday sida ay u taageersan yihiin go'aankii madax dhaqameedka Soomaaliland iyo xukuumadda ay ka qaateen ka qaybgalka shirka Soomaaliya. kulankaas oo goobjoog ka ah gudoomiyaha gobolka Sanaag ayaa madaxda dhaqanku waxay shirkoodan jaraa'id cod dheer ku cadeeyeen inaan jiritaanka Soomaaliland uu yahay lama taabtaan gorgortana geli karin, waxaana ay xuseen in Soomaaliland ay tahay dawlad madax bannaan oo leh dastuur, xuduud, calan, ciidan iyo xuduudba. waxaana madaxda dhaqanka ee gobolka Sanaag digniin culus u direen cid kasta oo isku dayda inay huwadaan magaca Soomaaliland oo ay kaga qayb galayaan shirarka Soomaaliya. waxa kale madaxda dhaqanku ay shirkoodan jaraa'id ku amaaneen gudoomiyaha gobolka Sanaag iyo taliyaha qaybta booliiska oo ay xuseen inay ka soo dhalaaleen muddadii yareed ee xilka hayeen xilkii iyo waajibaadkii uu qaranku u igmaday. magacayga iyo magaca salaadiinta gobolka Sanaag waxaanu taageersanahay shantii qodob salaadiintu soo saartay ee isla garatay ee ahaa waa qarandumisninkii madaar kale ka dega waanu taageersanahay kuna gowracanahay ayaa gobolka gaar ahaan waxaan ku balan qaadaynaa gudoomiye inaanu madaxda dhaqanka marka hadday nabadoonta hadday salaadiinta hadday publiga dadweynaha tahay inaanu macaadanahay kulana shaqaynana waan ku balan qaaday taliyaha qaybtana runtii waa ku ammaanayahay howlaha nabadgelyada uu ka wada gobolka. anigu waa Sultaan Cabdullaahi Cabdikoor waxaan halkan ka cadaynayaa haddaanu nahay simada dhaqameedada gobolka Sanaag in aanan taabacsanayn raacsanayna shirka lagu qabanayo Muqdisho. dadka annaga la leeyahay way ka tirsan yihiin oo way tageen annaga dad annaga nimatira maaha wax kastoo ay yihiin mana noqonayso mid ay nagula soo noqdaan mana noqonayso fikir aanu qabno taas weeye waxaanu la qabnaa fikirkaas haddaanu nahay simada gobolka Sanaag isimada Hargeysa qaraarka ay soo saareen iyo maamulka Somaliland ayaanu raacsanahay oo ku goonaa marka taas weeye فكلت لليهاي وفرور يراهدو قبل كسناك أيام فوت يغاضي فوت يعني محاكمة الدستور وحكتير مجران وحويا فرور يساق أيام دتكي ومدخا وشيغانيي كالفربيي وحنكولي هاي تدكاسو راس عصير يروس عصير وكان لغاية وحي لمدى غير markaan leeyahay gobolka Sanaag dadka socda ayaa ii footiyay oo dastuuriga footiyay oo gobolka ka tirsan ma jirto waanu beerinaynaa wax ka jira ma jiraan wixii halkaas fiirina waa hadal afragaada waa hadal ku xadgudba Somaliland annaguna dad xora baan nahay koob 9kii shirarkii aanu galay oo ku garanay oo ku garawsanay dawlad ka go'an Soomaaliya inaan noqono sidii looga go'anahay amnikan ay tahay dawladdan gaadhay oo jirsatay 22 sanadood ayaanu annagu haysanaa ambaqaad baasiyan baqaadayna horumarka iyaga adduunka wixii wax nala qabanayna diyaar baan uga nahay wax nala qabtaan cidii kale ayaan soo faragashan intaas ayaan ku soo koobayaa oraadayda iyo raayigayga gudoomiyaha gobolka Sanaagna waan wada shaqaynaynaa wada shaqayn fiican baa naga dhaxaysa iyo sida uu aad u qabtay wax qabadkii uu muujiyay muddadii yareyd ee uu hayay ayaan iyadana aad u hambalyeynaa waxaanu aad ugu taageersanahay oo aad u dhinac taaganahay salaadiinta gobolka cuqaasha waxgaradka aanu saakada kala soo qayb galay shirkan waxaanu cadaynaynaa in ay Somaliland hore uga goosatay oo go'aan iyo dastuur iyo sharci mid ilaahay iyo mid kaleba ay soo cadaysay in aanay Soomaaliya shir ka dhaxeeyo iyo Somaliland wada hadal mooyaane wax saldaan iyo madax dhaqameed iyo cid kasta siyaasi nin kasta oo xamar qayb u doontay waxa weeye nin hunguri wadiyo nin hadi wada midna halistama wax mateli kara Somaliland oo hadba duub yar oo meel ka baxsan oo faqadiina ma mateli karo mid hadee waa hal soo baxsatay oo kale hanqal taag waa uga digaynaa waa u cadaynaynaa
وحوي وقرت لنا قوان كاسوا نغا قاصر سياسان تاغيرسنahay talabaad waxaanu aad soo dhaweynaa oo cid walba u sheegaynaa gudoomiyaha gobolka Sanaag barasaab iyo taliyaha qaybta booliska inay gobolkii Sanaag aad moodo caafimaad aad u badan soo galay shaqada ay wadaan gudoomiyaha gobolka Sanaag Aadan Diiriye Cigaal ayaa isaguna dhankiisa madaxda dhaqanka gobolka Sanaag ku amaanay sida ay mowqifkooda u cadeeyeen shirkan jaraa'id ayaa noqonaya kii ugu ballaadhnaa ee noociisa ee madaxda dhaqanku ay ku cadeeyaan mowqifkooda ku wajahan go'aansitaanka iyo madax bannaanida Soomaaliland inuu yahay lama taabtaan waa Maxamuud Maxamed Xasan Saraaf Argabo